بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa halkan inaan ka soo jeediyo hadal yar oo kooban sida aad wada ogtihiinba haddaynu nahay shacabka reer Puntland waxa aynu ku soo jirnay barnaamij doorasho oo soo socday muddo imika aad u dheer ay ka soo qayb galeen tartamayaal fara badan khamiistii oo bishii 8 ahayd ayay doorashadaasi dhacday waxaa ka soo baxay natiijo ay ku guuleysteen 2 nin oo ka mid ahaa tartamayaashii u tartamayay labadii jago waxaan ugu hambaliyeynayaa guushaas ay gaareen waxaan ilaahay uga baryayaa in xilka iyo mas'uuliyadaas ay qaadeen ilaahay u fududeeyo iyagana waxaan ilaahay uga baryayaa inay noqdaan kuwo waxtar dadka u geysta oo wax ka qabta dhibaatooyinkii jiray ee dadka reer Puntland haystay muddadii u dambeysay waxaan ka codsanayaa inay fuliyaan ballanqaadyadii ay sameeyeen oo dhammaantood ahaa kuwo muhiim ah isla mar ahaantaana ah kuwo dhammaantayo aan ku hamiyeynay oo naga dhaxeeyey haddaanu nahay musharaxiintii isbeddelka doonaysay waxaan madaxweynaha cusub cabdiraxmaan maxamed faroole ka codsanayaa inuu hirgeliyo ballanqaadkiisii ahaa in uu muddo yar oo gaaban ku hirgelinayo barnaamijka asxaabta faraha badan kaasoo runtii ah waxa ka maqan dimuqraadiyadeena wax weyna ka taraya isbeddelka siyaasadeed ee aynu u baahannahay intaas markaan ka gudbo waxaan halkan salaan aad u weyn iyo mahadnaq usoo jeedinaya shacabka reer Puntland taageeradii qayrulcaadiga ahayd ee aadka u weyneed ee ay muujiyeen waxaan ka codsanayaa inay taageeraan natiijada meesha ka soo baxday inay la shaqeeyaan madaxda cusub ee la doortay anigoo ku rajo weyn in 4 sano kadib habka wax loo doortay iminka uu ka gedisnaan doono haddii maamulku hirgeliyo oo 4 sano kadib codkoodu noqdo ka wax doorta ee aanay wax dooran sida 6 nin oo runtii aan ka turjumin doonista dadka waynu inaga inoo taala waynu ka gudbaynaa waxaa loo baahan yahay samir iyo dulqaad iyo la shaqayn lala shaqeeyo maamulka waxaan aaminsanahay maamulka hadda jiraa inay ka go-an tahay inuu bedelo nidaamka siyaasadeed ee dalka ka jira sidaas baananu ku heshiinay oo ay ballan qaadeen waynanu ka rajaynaynaa 4 sano waqti dheer maaha waa waqti gaaban runtii shacabka reer Puntland waa shacab aad u wanaagsan oo doonaya isbeddel waa shacab raba hoggaan wanaagsan doonistooda iyo rabitaankoodana ilaahay waxaan ka baryayaa inay hirgasho qolada imika la doortayna waxaan ka codsanayaa inay hirgeliyaan arrintaas waxaanan anigu ku dadaalayaa inaan si buuxda ula shaqeeyo maamulka la doortay iyo madaxda la doortay oo kala shaqeeyo arrimaha kala gedisan ee lagu horumarinayo dalka reer Puntland iyo dhibaatooyinka kala gedisan ee haysta shacabka reer Puntland waxaan isku dayayaa in sidii aan uga howlanaa waxqabadka ummadda reer Puntland inaan halkeedii ka sii wado waxaan aada ugu qanacsanahay oo ku faraxsanahay natiijadii kasoo baxday doorashada sideedaba ninka ragii khasab maaha inuu mar walba guuleysto tartan haddii la galo nina waa guuleystaan nina waa haraa waa bilowgii aniga noloshayda siyaasadeed maaha dhammaadkii waqti badan oo soo socda insha allah bilaad naftayda ayaa harsan
wayna iga go-an tahay inaan dadkayga iyo dalkayga u shaqeeyo una adeego. labaadna waxaan usoo jeedinayaa mahadnaq shacabka reer puntland oo ahaantii itusay wanaaga iyo sharafta ay hayaan siina dardargeliyey rabitaankii aan rabay inaan usii adeego shacabka reer puntland. aada iyo aad baad umahadsan tihiin. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jidkii lagu dhawaaqin ayaa hawlka kasoo baxday. waxaad dareentay qaabka doorashada maxaa keenay adoon ogaan natiijadii in aad guulaysatay mise xarunta hore? runtii natiijada anigoo og baan soo baxay iyadoon lagu dhawaaqin weli oo intayda gudaha ku jirta aan ogaanay natiijadii. waanay jirtay inaan kasoo baxay in natiijadii la sheegin. emotional baana noqday oo aniga meesha kumaan fadhiyeyna dadkaan u fadhiyey waxaana ii muuqatay natiijada meesha kasoo baxday inaan ahayn kii dadku doonayeen. markii wakti la joogayna waxaan ka fikiray danta dadka iyo dalka waxaanan aqbalay oo qaatay natiijadii meesha kasoo baxday. may ahayn cadho, manay ahayn diidis aan diiday wixii meesha kasoo baxay. waxaan saxaaxay intaanan doorashada gelin in wax kasta oo kasoo baxa doorashadaas inaan aqbalo. waanan utaaniyadeeyey intaan horka kasoo bixin waxaan gacan qaaday ninkii ku guulaystay. dadkii meesha fadhiyeyna dhammaantood waan salaamay. kabacdina waan soo baxay. marka may ahayn cado, manay ahayn xanaaq. natiijadana anigoo og baan soo baxay. mudane Salmaan Faysal Khaliif MCC sore waxaa taaka la kulanteen adiga iyo waxgarad kale oo fara badan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. muxuu ku saabsanaa shirkiinii maanta? shirkaygaas maanta wuxuu ku saabsanaa khamiistii ayaa doorashadu dhacday, jimcaa ku xigay, maantay sabti ahayd oo la ishaleelay. waxaan u tegay inaan ugu soo salaamo una hambaliyeeyo una soo jeediyo fikradahayga la taliyo. waana dhammaan talooyinkii aan soo jeediyena way qaateen si wanaagsanna waanu soo afgaranay. salaman faarax geele reerogaan kacay waxaad tahay nin siyaasada yaroo qurbaha ka yimid iminkana dawladdii waafiyaalka la tartamaysay waxaa ku guulaysa musharaxiin kale. ma siyaasadda saasaad kaga baxaysaa oo qurbihii baad ku laabanaysaa mise golaha wasiirada la dhisi doonaa xubintaada ka qaadaysa shada kusii jiri doontaa? runtii anigu waxaan u yimid in aan u adeego bulshadayda. waan la shaqeynayaa maamulka hadda jira, waana kala shaqeynayaa si wax kasta oo keenaya horumar iyo wanaag. ka mid noqon maayo golaha wasiirada oo ma aha waxa igu jira inaan ka mid noqdo golaha wasiirada, laakiin si kasta oo kale oon ula shaqeynayo iyo wax kastoo kale oon ku caawinayo ama tala ha noqoto ama waxqabad kale ha noqdo diyaar baanu ahay. waana cabdirasaaq maxaan sicishadaan waxaan weydiinayaa su-aasha tahay maadaama aad madaxweyne ku-xigeen soo taagtay lagana guulaystay haddana aad tiri wasiir suga soo taagayo dawladda waa la shaqeeya, muxuu yahay go-aamada koor taagan aad ku dhaqaaqi doonto? anigu awal hore shaqo meesha uma soo doonan. waan haystay shaqo, shirkado badan baan leeyahay oan ku mashquulsanahay. halkan hawlo badan oo kalaan ka waday oo hawlaha ijtimaaciga cusbitaallo aan dhisiiba jiray. waxyaalo kaloo badan oo aan raba inaan anigu shaksi ahaan uqabtaa jira. marka hawlahaygaas aan awalba watay ayaan wadayaa. kuwaas baanan ka jeclahay wasiirnimada, iyaga iga wanaagsan. inaan waxaan aada iyo aada isugu dayayaa inaan ka shaqeeyo iminka oo culays weyn saaro caafimaadka iyo waxbarashada deegaanada puntland hadii alla ka dhigo. shabakada warbaahinta darja waxaa jirtaa in 66 xubnood ee golaha wakiilada keliya ay soo doortaan. sida ay soo dooran lahaayeen shacabka ahaan lahayd one man one vote ay noqon lahayd, maxaad ka lahayd natiijada midda ma geertaan lahayd adiga marka laga adkaado? haddii shacabku maanta dooran lahaa waxaan rabaa inaan noqon lahaa anigu ninka ku guulay.